السلام عليكم كلنتو wanaagsan tan ilaa iyo maalinkii arbacada ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ee la doortay Donald Trump uu ku dhawaaqay wasiiradiisa waxaa soo baxaysa in Israel madaxdeeda ay aad ugu faraxsan yihiin Donald Trump raggan uu magacaabay haddaba maxay tahay sababta ay raggan ugu faraxsan yihiin madaxda Israel gaar ahaan wasiirka dhaqaalaha Israel ninka lagu magacaabo Stomridge sidaas oo kale wasiirka amniga Israel ninka lagu magacaabo Itamar Ben-Gvir oo hogaaminaya xisbiga garabka midigta fog oo ah kuwa aad u mayal adag isla markaana aad u nacib sinjiga carabta iyo muslimiinta sidaas oo kale oo faarkii Netanyahu la fahantiisa ayaa waxa uu kamid yahay ragga mas'uuliyiinta Israel ugu sareeya ee aad u soo dhaweeyay raggan uu magacaabay Donald Trump haddaba hadii aan eegno wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka يعني عصب دونالد ترامب ومجعبه وحا كمده نيكا لغو مجعبه وحا نيكا لغو مجعبه مارك روبيو وحا لو مجعبه وزير كأريمها دبدا دالكاسي مريكانكا يعني مركز ومجعبه دونالد ترامب نيكان وانين أسل كيسا كسو جيدا ودنك كوبا وانين مركاسي aad u necab iska caabinta Falastiiniinta sida dhowr jeer muuqaalo kala duwan laga duubay inkastoo hal muuqaal uu noqday muuqaalkaasi baraha bulshada qabsaday ninkan wuxuu aad ugu soo horjeedaa dagaalka ka socda wadankaasi Ukraine wuxuu dhowr jeer u oleeyay in dagaalkaasi ka socda wadankaasi Ukraine la joojiyo haddaba maxay tahay sababta Israa'iiliyiinta ay ugu faraxsan yihiin Mark Rubio in loo magacaabo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka muuqaalkan ayaa ku sharaxi doona bal aan isla daawano Will you call for No, I will not. On the contrary. Are you filming it? I want you guys to get this. I want them to destroy it. ninkan xilligaas wuxuu ahaa xildhibaan waxay qofkaas dumarka ay weydiinaysaa mudane xildhibaan yani rajama ka qabta inaad ku dhawaaqdo xabajoojin in laga hirgeliyo gudaha magaalada Gaza markaas ay wuxuu leeyahay maya muuqaal miyaad iga duubaysaan waxaan rabaa inaan fariintan yani halkan idinkaaga gudbiyo fariintii ayuu sheegaya balan dhageysano Every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes, and I hope you guys post that. wuxuu leeyahay waxaan doonayaa in la burburiyo iska caabinta Falastiiniyiinta iyo hub walba ay adeegsanayaan dadkaasi waa dad xayawaano xamaqiin ah oo dambiyo yani xabsi ah galay marka wuxuu leeyahay waxaan doonayaa in iyaga oo dhan dhulka la dhigo waa intii uu xildhibaanka ahaa hadda waxa loo magacaabay wasiirkii arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka qofkii dumarka ayaa waxay su'aal ay sii weydiinaysaa war meesha waxa ku nool caruur iyo dad maati ayaa ku nool sidee ayaad u leedahay yani duqeynta iyo dhibaateynta gudaha magaalada Gaza ka socota hal loo sii wado wuxuu ku jawaabayo bal aan aragno every day. Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. Hamas should stop building their military installations underneath hospitals. So you don't care that 15,000 have died? You don't care about the babies that are being killed every day? I think it's terrible, and I think Hamas is 100% to blame. That's what I think. Make sure you post that, please. saadu jeedaan ninkan wuxuu markaasi uu leeyahay iska caabinta Falastiiniyiinta waa kuwa markaasi dadka ku dhex dhuumanaya isbitaalada godadka qotay yani waan rajeynayaa in yani dadkaas aan la dhibaateynin laakiin waxaan rabo waxay tahay in dadkaasi la baabiyo marka waliba wuxuu hubinayaa ha hilmaamina in muuqaalkaasi baraha bulshada aad soo dhigtaan marka waa sababta ugu badan ee dadka Yuhuudda ay markaas ugu faraxsan yihiin in Mark Rubio loo magacaabo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka ninkan isaga sidaan hore idinku sheegay ma aha nin yani dhalashadiisa ka soo jeeda asal ahaan dadka Yuhuudda laakiin waa nin u dhashay wadanka Kuuba taageero aad u xoogan ka raadinaya Israa'iiliyiinta ku nool ee guud ahaan caalamka waana sababta Stomridge sidaas oo kale Itamar Ben-Gvir ay aad ugu faraxsan yihiin una soo dhaweynayaan in ninkan loo magacaabo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka ma jeceshahay barashada quraanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa quraanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culuumta shariicada isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 sidaas oo kale ninkan aragtidiisa ku aadan wadanka China ninkan wuxuu u arkaa tahay cadawga ugu weyn dalkaasi Mareykanka hadii aan eegno dhanka Iran ninkan aragti ahaan wuxuu ka aaminsan yahay inay tahay qolo argagixisa ah oo gobolkan bariga dhexe ku taala
oo markaasi ka soo horjeeda jiritaanka Israa'iil marka aragtida uu kala mid yahay wasiiradii ugu horeeyay dalkaasi Mareykanka sida wasiirka hadda xilka haya Blinken marka laakiin waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxay tahay in uusan u muuqanin nin yani doonaya inuu u ololeeyo nabad inay ka dhacdo gobolka Bariga Dhexe dhanka kale markaan eegno dadka Donald Trump uu magacaabay ee Israa'iil ay aad ugu faraxsan tahay waxa kamid ah gabadhan lagu magacaabo Alice Stefanik gabadhan waxay noqon doontaa wakiilka u fadhiya Mareykanka qaramada midoobeed gabadhan asalkeeda waxa la sheegay ama aabaheedu uu ka soo jeedo wadanka Jeeg hooyadeedna ay ka soo jeedo wadankaasi Talyaaniga gabadhan waxay aad u taageersan tahay Israa'iil dagaalka ay ka wado gudaha marinka sidaas oo kale xadka wadanka Lebanon waxayna kamid tahay dadka yani Donald Trump aad u taageersan ee isla markaana taageersan in Israa'iil ay dagaalka iyo xasuuq ay ka sii wado gudaha marinka tan ilaa 7 Oktoobar warbaahinta reer galbeedka oo dhan waxay sheegayaan in gabadhan ay markaasi aad ugu ololeynaysay in Mareykanka uu hub u ka iibiyo ama uu hub ugu deeqo dhanka Israa'iil sidaas oo kale Donald Trump dadka uu magacaabay ee Israa'iil ay aad ugu faraxsan tahay waxa kamid ah ninka lagu magacaabo Michael Waltz waxa loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka dalkaasi Mareykanka ninkan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka ee la magacaabay Rubio wuxuu kala mid yahay siyaasad ahaan in Shiinaha ay u arkaan inay yihiin cadowga koowaad ee Mareykanka caalamka uu ku leeyahay sidaas oo kale ninkan ee loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka dalkaasi Mareykanka sanadkii 2021 maamulka Joe Biden wuxuu ku eedeeyay kala bixistii ciidamada dalkaasi Mareykanka ay ka baxeen wadankaasi Afghanistan ee muddada 20 sano ay ka dagaalamayeen uu ka dhigay hal bacaad lagu lisay wuxuu ku eedeeyay xiligaasi in Mareykanka jab xoogan uu ku soo gaaray naf badan uu ku waayay dalkaasi Afghanistan waajib ay ahayd in guud ahaanba dalkaasi Afghanistan ay Mareykanka xoog ay kula wareegaan sidaas oo kale Mike Huckabee waxa loo magacaabay safiirka Mareykanka u fadhin doona gudaha Israa'iil ninkan markii la magacaabay gudaha Israa'iil waxa ka dhacay dabaaldegyo aad u waaweyn gaar ahaan dhanka daanta galbeed ninkan waa nin aad u taageersan Israa'iil sidaas oo kalena aad u taageersan daanta galbeed guud ahaanba in Israa'iil iyada ay la wareegto oo dadka Falastiiniyiinta ama dadka Carabta halkaasi xoog looga qaxiyo ama guud ahaanba dadkaasi laga qaxiyo wadanka Falastiin sidaas oo kale dadka Donald Trump uu magacaabay waxa kamid ah Peter Hegseth waxa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Mareykanka ninkan asalkiisa wuxuu ka soo jeedaa wadanka Norway haddaba ninkan yani arinkiisa muran ay dhalisay markii yani loo magacaabay inuu noqdo wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Mareykanka qubarada dalkaasi Mareykanka gaar ahaan arrimaha militariga ayaa waxay sheegeen in ninkan uusan ku habooneen xilkaasi loo dhiibay maadaama yani uusan ahayn nin yani qabiir ku ah arrimaha militariga dalkaasi Mareykanka sidaas oo kale dadkii uu Donald Trump uu magacaabay waxa kamid ah Stephen Witkoff ninkan waxa loo magacaabay ereyga gaarka Mareykanka ee arrimaha Bariga Dhexe ninkan asalkiisu waa nin Yahuudi ah isla markaana aad u taageersan Israa'iil arrimaha ay ka wado gudaha marinka iyo sidaas oo kale dhanka magaalada Gaza run ahaantii tan ilaa iyo isbuucii hore markii Donald Trump xilka madaxweynimada dalkaasi Mareykanka markiisii labaad oo yani uu ku guuleystay waxa aad u soo dhaweeyay oo faarkii Netanyahu iyo sidaas oo kale raggan yani garabka midigta fog ee kala hogaaminaya Stormridge iyo sidaas oo kale Atmin Ben-Gvir waxayna ku sheegeen in ay tahay yani in arinkaasi ay tahay survival toolbox-ka waxay u yaqaanaan oo ah yani boxkii ay ku badbaadi lahaayeen ama qalabkii ay ku badbaadi lahaayeen Netanyahu iyo wasiiradiisan ee markaas ku hogaaminaya dagaalka magaalada Gaza inuu sii socdo run ahaantii waxa jirta walwal badan uu qabo Netanyahu isagu wuxuu ka walwalayaa hadii Donald Trump uu yimaado suurtagal ay ka tahay in uu ku dhawaaqo dagaalka marinka ka socda in la joojiyo halka Donald ninkan Netanyahu isagana uu aad u danaynayo in Iran weerar lagu qaado run ahaantii maalmihii ugu dambeeyay waxa aad u sii xoogeysanaya xisbiga duqeymaha ay ka wadaan dhanka waqooyiga Israa'iil iyo sidaas oo kale gudaha Tel Aviv labadii maalmood ugu dambeysay la socotaan Israa'iil waxay ku jirtay xaalad yani aad ciriiri u ah oo yani ciidankeeda iyo shacabkeeda ah sida maalinkii darad idin soo gudbiyay oo hadda Al Jazeera xitaa ay soo tabanayso waxa bilowday qubuurihii cusba ee laga qodayay dhanka magaalada Qudus
ama Jerusalem ay u yaqaanaan oo gaaraya ilaa 600 quburo oo loogu talagalay militariga Israa'iil in lagu aaso maadaama quburihii kale ee gudaha Israa'iil ku yaalay dhammaantood ay buuxsameen run ahaantii hadda waxa ka socda gudaha Falastiin dhulboob aad u xoogan gaar ahaan dhanka daanta galbeed inta maamulka Joe Biden xilka uu sii hayo sida laga dareemayo gudaha Israa'iil laga arkayo waxa aad u sii kordhaya dhulboobka ka socda dhanka daanta galbeed oo dadka Falastiiniyiinta lagu qasbayo in dhulkoodii ay isaga baxaan insha Allah wixii kale soo kordhana dib ayaan halkaan idinkaga soo gudbin doonaa biidnillah